الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي كمثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأجله وأحسنه إلا مضيعة اللبنة المزاوية وجعل الناس يطوفون أو يعجبون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله أمد الصوماليات ميل الله لميشي جوكتو إلهي درتيس أي عيدين جعلها ما شاء الله الصومالي ميل الله لميشي جوكتو إلهي دبعتها كدل قاضو ما أنت وحي لجرا والالكي مرنا صاحبكي مرنا أسكري عن وطن كاس عن كوض شقين دون إن شاء الله تعالى إلهي درتيس أي عيدين جعلنا هاي waxaan idin leenahay meel allaale meeshaad ku sugantihiin ilaahay caafimaad taam ah idin siiyo. marka xalay waxaan ka hadlay maasha Allah xoogaa yar oo yaani dhibaato yar oo ka jirtay oo walaalaheen reer Soomaaliland ilaahay dibka ka dulqaado ha loo duceeyo insha Allah taala. ayagana ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay Cabdimaalik iska deeyaan maskiinkaas oo meesha ay ku dulmiyeen mideeda kalena inay midka nabiga caayay ay toogtaan markaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibaatada uu ka dulqaadayaa. maanta nin nabigeena sallallahu alayhi wa sallam caayay in guri lala dego lala seexdo wanaag ma ahan waayo dhibaatada maanta wiligiina ku barneen idinkii aad mar walba isdhibaataysaan annaga ma barneen laakiin maanta waxaan arkaynaa dhibaato aad iyo aad u weyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa dhibka keenay balse laakiin dhibaa anaga keensanay waayo dhib iska imaaday ma ahan ninka nabiga caayay hala toogto maasha Allah waxaan joognaa beedhaba jannaay maasha Allah Soomaaliya meel allaale meeshay joogto waxaa idin leeyahay ilaahay dartiisa idin jeclahay reer Soomaaliland ilaahay dartiisa ayaa idin jeclahay waxaan idinka jeclahay maanta adduunkaas ku socdo ma jiro walaalahe ayaa tiin Soomaaliyeed maadaama aad la baxdeen reer Soomaaliland waa idinku qaatay magacaas waayo idin kale ma ahan Puntland jirto Jubbaland jirto wax badan oo reer laana jiraan waa idinku wada qaatay insha Allah taala laakiin Soomaalinimada aan isugu imaano wax ka wanaagsan ma Soomaalinimada aan soo dhaweeyno insha Allah taala wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Soomaaliya noolaad.